Soomaalidu waxay ka fakartaa carruurtiiya waxa kan dhaqaale u sameeyo guriga u dhis waddankan ay joogtaan kuwa ugu timaadeen odayadii hore guriga uga tageen saaka la igu lahaa qaar guriga looga tagay la sheegayo waxa la yidhi maalintiina way seexdaan habeenkiina way qayalaan ama way soo jeedaan baa la yidhi dabeetana waxoogaa yaroo kiro oo ay guriga ka qaataan hadduu se qofkaasi ka tagi lahaa qof iimaan iyo diin leh walow aanu guri uga tageen wuu xoogsan lahaa ilmaha inaad guri uga tagto waxaa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u samayso waxa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima hadduu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel u seexdiyo wuxuu cuno isaga raadacaysanaya adiga xilka ku saaranay kaama xilka ku saaranay waxa weeyaan falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo u dardaarmaya carruurtiisii islaamnimo nebi yacquub oo markuu geeriyoonaya u yeedhay oo ku yidhi maxaa caabudaysaan aniga dabaday oo ay u sheegeen ilaahaad adigu caabudaysa iyo aabbayaashaaba ilaahay caabudayeen baanu haysanaynaa ambiyadu dardaarankay ka tegayeen wuxuu ahaa islaamnimo ku dhinta ma odhanin war xoolaha maxaa ka yeelaysaan reer kastaa u maamulaysaan daarihii sidaa odhan doontaan reerka ma ururin doontaan baabkaa uma bilaabine qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay inuu diin ka warramay haddaba hadday diintu agteenna qiimo ku leedahayna waxay noqonaysaa mid aynu ilaalinno mid aynu naf iyo maalba dul dhigno mid aynu dowrulcibaada meelahaynu ku cibaadaysanayna inagu lacagteenna gelinoo dhisno madaaristeenna inagu dhisanno nolosheenna ay ka mid noqoto aynu u fakarno haddiise diintu aanay qiimo lahayn waxay noqonaysaa si gaalku kuu qaado intaad meelahooda tagto inaad dafoorada usii xirxirato tila anigu diin shaqo kuma lihiye waxaan rabaa in yurub laygeeyo baabkaasi shaqo kuma lihiye way iyadaa kuugu qiimo yar iyadaa kuugu liidata galabta culamada idin wacdii doonta laakiin anigu waxaan idin xasuusinayaa oo keliya inaydan foqoro ahayn ee wixii dunida ugu qaalisanaa inay agtiina yaallo saxaabadii markii ay dunida ku faafeen bershiya markii dagaaladu ka socdeen xarb alqaadisiya 30,000 oo muslimiina baa dagaal ku jiray iyo dad 200 oo kun ku dhadhow oo gaala ah dabeetana markii dambu ninkii gaalka ahaa meesha joogay wuxuu yidhi bal iigu yeedha nimankani waxay doonayaan 3 nin buu kolba mid yidhi ha lay soo diro waa loo diray wuxuu u weydiinayaa uu leeyahay warnimayo haddii meeshiinii dhulkiina waan oga waa iska saxaariya meel qaraxee aan xoola idin siiya noqda xaggiinii ku laabta wuxuu weydiiyey maxaa idin soo bixiyay dhulkiina idinka keenay dee wuxuu isleeyahay waxay odhan doonaan xoolaanu doonaynaayo waa meel abaaraanu ka nimi waxay ugu jawaabeen ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarro addoonsiga is addoonsadaan waanu u saarro ilaa cibaadati illaahi waxdah ilaahay inay addoommo u noqdaan cidhidhiga adduun inaanu ka saarno ballaca aakhiro u saarro diimaha kale cadaalad xumadooda inaanu ka kaxayno oo diinta islaam geyno idan waxay leeyihiin wixii ugu weynaa baanu haynaa